calanka.com. مهمة إلى هذه وتفسير سير كهذا الشيء هذه مهمة إلى مرة والتحاب بالنسبة للسوق الصومالي وحاول التحاب أو وطنيات هذه مرة واحد نوعها هرمونك أو صعدك هو مركز ضلك ديالنا هذه الشغلة اللي dhalinyarada ayaa dalkan loo isticmaalay oo lagu dooniyay oo ayaguna dhibaato ay ka gaartay maantana aan u baahnay meel fiican runtii maraysa dhalinyarada haddana inay noqdaan aalada dhisaysa dalka oo dib u soo celinaysa sharaftii iyo karaamadii ummaddan ay tahay The New Deal Somali Compact has recently approved a flagship program for youth employment for about $9 million to begin with in the United Nations Multi-Partner Trust Fund. That program will train at the beginning 9,500 young Somalis in working on rehabilitating infrastructure in Somalia. horta waxaa jira dhalinyaradu hal dhibaato haysta markii la fiiriyo caalamiyan ama la fiiriyo Soomaaliya markii la fiiriyo mushkiladda haysataa waxay tahay mushkiladda shaqo la'aanta oo shaqo la'aantu waxa weeyaan waxa ay ka dhalan karaan tahriibka budhcadbadeeda iyo muxuu ahaa argagixisanimada saddexdaasba waxaa dhala shaqo la'aanta waxaa jira marka barnaamij ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo saddex waji ahaa markii la saxiixayay wajiga koowaad oo ahaa shaqo abuur dheer oo loogu talagalay in la shaqaaleysiiyo ilaa iyo 2,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed waqti dhow heshiiskaasna uu saxiixay dawladda Soomaaliya ay saxiixday UN-kuna ay saxiixeen lacagta ay ugu talagashay beesha caalamkuna la rabay in looga faa'iideeyo ilaa iyo 2,000 oo dhalinyaro wajiga labaad wuxuu ahaa in la sameeyo tababar in loo sameeyo tiro gaadhaysa 20,000 oo dhalinyaro oo muxuu ahaa marka u dambeysana ay shaqo heli doonaan waqti dheer tiro gaadhaysa 3,000 oo dhalinyaro maanta waxaan u joognaa munaasabadii 12 Agoosto oo ah maalintii loo asteeyay maalintii dhalinyarada adduunka maanta farxad weyn noo tahay waana markii ugu qiimaha badneed aan isdhihi karno aan kala soo qayb galno wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada iyadoo xuska munaasabadda maalinta dhalinyarada adduunka loo fadhiyo madaxweynihii ka soo qayb galay dareenkeena ma qiyaasi karno waxaan u aragnaa inay tahay guul iyo farxad calanka.com.